اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kusoo dhawaada janalka doctor bana sidaad nagu barateen barnaamijkii aan kasoo hadlayna tobanka cudur marka sidaan nagu soo hadalna labada cudur ugu horeysa ay ahayd midda koowaad gaaska midda labaadna ay ahayd cagaarshowga haddana waxaan ka hadlaynaa cudurka loo yaqaano cholera ama shuban biyoodka insha allah waxaa noo jooga doctor bana asiga waxaan ka weydiinaynaa dhowr su-aalood marka insha allah waad ka faa'iidi doontaan aan maleynaa insha allah daawasho wacan doctor bana soo dhawaaw walaalkay maxamed aad iyo aad ayaa umahadsantahay waan ku dhawahay insha allah sida walaalkii inoogu sheegay ayay barnaamijkana noqon doontaa maantana insha allah waxaa u fadhinaa cudurka cholera insha allah barnaamijkana sii gudagelaynaa hadda su-aasha koowaad aan weydiinayno tutorka waxay noqon doontaa insha allah horta inaan concept ka qaadano waxa loo yaqaano shuban waa maxay shuban horta okay maxamed waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan cholera ama shuban waa cudurkaas waa cudur shuban ah ama shuban biyood dadka sida u yaqaaneenba shubanku waa marka tirada iyo kordhida tirada iyo jilicsanaanta saxarada waa markay kororto jilicsanaanta saxarada sida wada ogyahay sida macruufka saxarada xoogaa way adag tahay laakiin markay kororto jilicsanaanteeda ay jilicsanaanto haddana ay sii kororto tirada jilicsanaantaas waxay noqonaysaa marka shuban ayay noqonaysaa marka waa kordhida tirada iyo jilicsanaanta saxarada tiradan oo ah qofka sida loo ogyahay macruufka hal mar maalintii waxaa laga yaabaa 3 mar indhoog gale inay kafaay tahay laakiin haddii tiradana sii badato jilicsanaantana ay sii badato meesha waxaa gacad inuu shuban yahay shubanku waa marka kordhida tirada iyo jilicsanaanta saxarada taasoo kala ahaan karta in yar oo jilicsan oo biyo ah hal mar ama 2 mar in yar oo biyo ah ma la dhihi karo shuban mana u baahna in loo qaato daawo waa mahadsantahay doctore su-aasha labaad aan ku weydiinayna waxay tahay maxaa keena shubanka waa su-aal sidoo kale aada u muhiimsan shubanka waxaa keena 2 siyaaboodba oo ku imaadaa siyaabada ugu horeysa oo ah qof shubanka waxaa in uu keeno qofka jeermis in uu keeno tan labaad oo ah qofka in uu qaato cunto aanan ogoleen caloosha sida wala ogyahay qof waxaa laga yaabaa cuntooyin markuu qaato ay calooshiisa khasmayso cuntooyinkaas waxay keeni kartaa qofka shuban ayuu keeni kartaa ما شاء الله هذا ما تنتهي هذه توري waxaan kala ku weydiin lahaa insha Allah maxay tahay khatarta ugu weyn ee leedahay shubanka khatarta waa su-aal sidoo kale aada u muhiimsan shuban marba haddii la sheego khatarta laga filan karana khatar yar ma ahan khatarteed aad iyo aad ayay u daran tahay waxay ku sababi kartaa qofka in uu fuuqbax ku dhaco ama dheecaan bax qofka waxaa laga yaabaa dheecaankiisa jirkiisa ku jiro inta ugu badan in ay baxaan qofka hadduu mar dheecaanka dhan ka baxana wuxuu soo helaya waxay tahay nafsadiisa ayaa khalqiil galaysa qofka waxaa laga yaabaa shubankaas dartiisaba in uu u dhinto oo dhimasho hadduu waqtigiis imaado in uuba ku dhintaaba laga yaabo halistiisa aad ayay u daran tahay marka maasha allah aad u mahadsan tahay doctor su-aal aad iyo aad muhiim ah ku weydiin rabaa su-aashaas oo ah mathalan kaba soo qaad dad famil wada degan oo guri ah qof ka mid ah shuban kusoo booday qofkaas shuban kusoo boodan yacni habeenkaas isla meesha ay daawo ma u yaalo wax ay caawaan ama ku meel gaaraan ma u taalo farmashiyahan way xiran tahay habeen saqa dhexe ah waay meel la geenayana ma lahan kaba soo qaad baadiye camal la iska dheh sababtoo hadda anaga waxaan leenahay emergency meel la dhahayo la geenayo marka qofkii shuban kusoo booday mathalan kaba soo qaad wax ay u yaalana ma lahan sida ugu weyn oo la sheegan waxaa la siiyaa qofkaas ORS marka ORS kiina ma u yaalo marka sidee ORS ka loo sameyn karaa marka waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan oo dad badan anfici doonto jawaabtiisa insha allah ORS ordako waxay tahay waa qofka waxaa lagu soo celiyaa dhacaankiis ka baxay in uu dhacaan kale kasii bixin dhacaanka jirka ayuu joojiyaa marka ORS marka waa la samayn karaa waliba qof walba ayaa samayn kara waliba waxaa lagu sii samayn karaa qofka gurigiisa soo dhex fadhiyo oo meel u bixin ayuu samaysan karaa tusaaloo kale waxaa loo samayn karaa marka ugu horeysa qofka waa inuu soo diyaarsadaa weel waa inuu kusoo shubtaa biyo kadibna biyihii la karkariyaa biyaha markay karkaraan xaddi ay karaan biyahaas in ay karkaraan wuxuu ku shubayaa xoogaa sokor ah markuu ku shubo kadib wuxuu ku shubayaa intuu sokorta ku shubay in ka yar oo cusbo ayuu ku darayaa biyahaas markuu ku daro si fiican isku khasmaan biyihii wuu soo dejinayaa wuu qaboojinayaa kadib markaas qofkii oo shubanka heeyay ayuu siinayaa marka sokorta wallahi ilaa iyo khayaas ayuu la siinaya mar walba laakiin markuu sokorta ku shubo mar walba sokorta markuu ku shubo in ka yar oo cusbo ayuu ku shubaa macnaa mar walba waxaa rabaa sokorta inay badato cusbada ay yaraato oo qof walba sida khayaas ayuu qaadanaya kadib sokorta intaasoo ku shubaa kadibna haddana wuxuu kusii shubayaa cusbada kadib waxay noqonaysaa sidaas ay ku samaysmaysaa kadib biyaha wuu qaboojinayaa markaas qofkii markaas oo bukaanka ahaa oo shubanka heeyay ayuu siinayaa maasha allah jawaabtaas dad badan u baahan insha allah way ka faa'iideysan doonaan su-aasha kale aan ku gudbaa waxay tahay
calaamadaha lagu garto koleeraha, cudurka kolera. ha koleeraha calaamadaha lagu garto aad ay u badan tahay. haddaan soo koobno, kow waxay tahay qofka kaadidiisa, qofka kaadi la-aan inuu ku dhacdo. qofka markuu shubankiisa bato waxaa laga yaabaa kaadidiisa in ay yaraato ama kaadi la-aan ay ku dhacdo. sidoo kale caruurta oo kale markay kolera ku dhacdo waxaa macquula ayaga caruurta badanaa markay oynayaan ilin sida macruufka ilin ayaa ka yimaad. laakiin cunuga markuu ku dhaco kolera ama shuban biyoodka markuu ku dhaco waxaa la arkaa cunugii oo oynayo aanan ilinba ka soconin. iyadan calaamadaas waa lagu arkaa ilmaha. sidoo kale kolera waxaa kaloo calaamadiisa tahay afka qofka oo naqata khaleyl, afka oo khaleyl naqta. sidoo kale kolera waxaa lagu arkaa sidoo kale bishimaha ama furuuryaha sidoo kale ay naqata khaleyl in ay naqato. sidoo kale calaamadaha lagu garto kolera waxay tahay qofka indhihiisa oo god galaan, indhaha oo god galaan. sidoo kale calaamadaha kale lagu garto kolera waxaa kamid ah qofka daciiftinimo, inuu daciiftinimo muujiyo oo daciif noqdo. sidoo kale kolera waxaa lagu arkaa dabardaro, qofka tabartiisa oo aada u liidata. qof waxaa sidoo kale kolera waxaa lagu arkaa calaamadihiisa warwareer, qofka inuu warwareero oo qof isku buuqan inuu noqdo mashquulsan. sidoo kale kolera waxaa lagu arkaa oon badan qofka inuu dareemo. intaas waxay kamid tahay calaamadaha lagu garto koleraha. doctor aadaad umahadsan tahay. su-aasha kale aan usii gudbaya waxay tahay waa maxay cawaamisha ka qayb qaata faafida cudurka kolera? waa su-aal muhiim ah. faafida kolera waxaa ka qayb qaata ilaa way badan tahay, laakiin 3 ayaa kasoo qaadan doona insha allah. midda ugu horeysa oo ah jeermiska waxay ka tahay waxyaabaha ka qayb qaata cudurkan inuu faafo. tusaaloo kale waxaa laga yaabaa qofka markuu jeermiskan jirkiisa galo oo jirkiisa guda usii gudbo, dadka isku mid maahan. qof waxaa laga yaabaa calaamadaas inuu isla markii kasoo muuqdo, qofna aanan kasoo muuqanin muddo kadib uu kasoo muuqdo. dadka kasoo muuqdo waa la daaway kasoo qabo way caafimaad qabeen, laakiin kan weli u qarsan waxaa laga yaabaa mar laisdhahay cudurkan wuu baaba-ay, wuu dhamaaday inuu kusoo baxo sidii wadan bulshadii oo kusii qaado. taas marka waxay sababaysaa jeermiskaas oo qofkaas kusoo kacay ama oo u keydsanaa waxay sababaysaa cudurkii inuu soo laabto sidii oo kusii faafo. tan labaad ay ka qayb qaadanayso cawaamisha ka qayb qaadata faafitaanka cudurka, midda labaad waxay tahay environment ama deegaanka. deegaankana qayb weyn ayay ka qaadataa faafitaanka cudurka marka laga hadlayo. sababtoo ah deegaanka tusaale weliba waxaa ugu daran meelaha ceelasha oo kale, meelaha biyo fadhiisadka oo kale iyo waraha oo kale. meelahaas oo kale biyahaas oo ku keydsan waxaa laga yaabaa markay cudurkan beledka soo galo inuu sii gaaraan qof aanan waxba ku qabin inuu biyahaas cabo, biyihiisna ay naqdaan biyo wasakhaysan. ama sidoo kale waxay noqon kartaa biyahaas agtooda oo lagu saxaroodo, saxaradaas iyo biyahaas oo isgaaraan. meeshaas waxaa ka dhalanayo cudur inaad biyahaas ka dhashto oo biyihii aanan si fiican oo loo nadiifin. biyahaas aanan si fiican loo nadiifin waxay cudurka faafitaankiisa ayay sii kordhin kartaa. sidoo kale tan saddexaad waxay tahay oo ka qayb qaafata faafitaanka cudurkan waxay tahay bukaanka ama qofka ayaa ka qayb qaata. sida ugu qayb qaatan waxay tahay cudurka qof walba uu ku dhici karaa oo ah jinsi walba iyo da' walba leh. da' walba markaa ka hadleyno dhalinyar iyo duq iyo ilmo ma u kala baxsano, qof walba wuu ku dhici karaa. sidoo kale wuxuu ku dhici karaa jinsi walba oo ah rag walba iyo dumar walbana wuu ku dhici karaa. markaasuu ku dhaco cudurkan sidii ayuu dadka dhan uu gaari karaa. sidaas ayagana waxay kamid tahay waxyaabaha cudurkan sii faafin kara. maasha allah, haddii aada umahadsan tahay. su-aasha aan usii gudbo, su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay sidee loogu hortagi karaa marka kolera? koleraha waa su-aalka sidoo kale muhiim ah. waxaa loogu hortagi karaa koordko in la sameeyo dadka cudurka markoo la ogaado magaaladan ama inuu ku dhacay kolera, dadka mas-uuliyiinta oo caafimaadka sida WHO-ga ama waaxyada caafimaadka qusay in la wargeliyo. tan labaad oo cudurkan loogu hortagi karo waxay tahay in la sameeyo goobo badan oo dadka cudurka ku dhacay oo lagu dabiibo ama lagu daaweeyo. iyo sidoo kale waxyaabaha kale loogu hortagi karo waxay tahay talaalka qofka in la siiyo. sidaas talaalka waa mid macruuf, mar walba ayaa la wareejiya, xaafadaha lagu wareejiya. sidoo kale iyada muhiim ayay tahay in la qaato. waa mida oo looga hortagi karo kolera. aad iyo aad umahadsan tahay. su-aasheeda ugu dambeysa waxay noqon doontaa insha allah inaad naga siiso talo kooban cudurka kolera insha allah. barnaamijka qodobkan waa qodob taxana mar walba soo qaada insha allah. talada waxay tahay caruurta qaba cudurkan, tusaale oo kale qoys ayaa ka dilaacay cudurkan koleraha. dadka waalidiinta marka waxaa haboon in ay sameeyaan xilliga musqusha cunuga uu kasoo baxaayo, markuu saxaradiisa xaajadiisa soo dhameysto in lagu hubiyo ilmaha in ay gacmahooda si fiican usoo dhaqdeen. xitaa dadka waaweynka taa in lagu wacyigeliyo in ay gacmahooda si fiican iskaga dhaqaan.
ما شاء الله. teeda kale waxay tahay markay soo dhaqaan kadib cuntada xilligeeda asagana in gacmaha si fiican la iskaga dhaqo oo jeermiska si fiican loo dilo kadib markaas cuntadii wixii la cun lahaa in la cuno. sidoo kale waxay tahay midda labaad in la kala fogeeyo caruurta qabta cudurka kolera iyo caruurta aadan qabin waxaa haboon in la kala fogeeyo sababtoo haddii kale cudurkan waxaa laga yaabaa inay isku sii daarsanaan isku sii qaadaan. marka caruurta qabta waa qolal gaar ayaa loo sameeyaa, kuwa kalena qolal gaar si oo loo kala badbaado. ما شاء الله. aad iyo aad umahadsantahay doctore. sidaan filaa halaas waa kusoo koobi la insha allah intaana kusoo insha allah. aad iyo aad umahadsantihiin daawashaadna daawateen, idinkana aad ka faa'iidi doontaan insha allah. sidaad nagu barteen insha allah taxana way sii socon doontaa, idinkana ka faa'iideysta, anagana insha allah dhiirigelin ay noo tahay inaadna fiirsataan insha allah. commentigana waa soo qori kartiin waxaad u baahantihiin inaan ka hadalno cudur wixii noqoto oo magaalka ku badan insha allah. anagaaba soo qaadan doono wixii magaalka ku badan insha allah markasta. marka aad iyo aad umahadsantihiin. goodbye, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.